madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maanta waa uu hadlay runtii maanta wuxuu sheegay hadallo bulshada horta ay aad ula yaabeen bulshada Soomaaliyeed hadallo ay aad ula yaabeen ayuu maanta horta madaxweyne Xasan Sheekh yiri waxa waayihii dambe horta Xasan lagu eedeynayay dhul boob haddii siyaasiyiin tahay iyo haddii ay shacab tahayba waxa lagu eedeynayay madaxweynaha in uu dhul boob ay dawladdiisu ay wado runtii markaa madaxweynaha ayadoo dhul boobkaas lagu eedeynayay ayuu maanta hadlay waxyaalo badan ayuu ka hadlay madaxweynaha wuxuu yidhi aniga haddii aan guri jiingada aan ku dhisto iyo haddii guri 3 biyaano iyo 4 biyaano ah aan dhisto cid ay wax ka qusayso haba yaraatee ma jirto taas aniga ayay ii taallaa horta waa sax madaxweynaha xaq buu leeyahay inuu guri dhisto sawa muwaadin laakiin ereyga ah hooyada Soomaaliyeed waxba kama quseeyaan haddii aan cariish dhisto iyo haddii aan dabaq dhisto ayada waxay dani ugu jirtaa ilmaheeda inay iskuul dhisto wax bartaan hadda iskuulkiina madaxweynaha ma hayo waxbarasho free ah uma hayo ummadda ama yacni dhalaanka yararka ee wax baranaya marka bal madaxweynaha hadalkiisii bal waa kana bal wax yar aan daawan laakiin aniga inaan guri cariish deganaado iyo guri jingada inaan dhisto iyo guri 3 dabaqa 4 dabaqa inaan dhisto ana ii gaartaa wax ka quseeyo hooyada Soomaaliyeed ee cunugeedii in iskool u dirsato rabtaa ma jirto iskool lacag la'aan ay u baahan tahay uma baahna in hooyadaasi maxaan ku raaddaa bishaaro shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $0 ilaa iyo $50 haddaba macaamiil ku shuba $0 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo $50 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa idahab xidig 1 4 gees airtime xidig 200 4 gees reseller xidig 300 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo waayahay madaxweynaha marka hadalkan inuu yiraahdo asigoo madaxweynihii yacni jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ah inuu la soo istaaga hadal nuucan ah oo bulshada yacni oo ku yiraahdo horta yacni ma ku qurux badan tahay inuu madaxweynaha sidaan u hadlo oo sidaan uu yiraahdo hadalkaasi ma qurux badan yahay waayo waa madaxweynihii dalka ugu sareeyay inuu yiraahdo waxba kama quseeyaan haddaan cariish dhisto iyo haddii aan yacni dabaq 3 biyaan 4 biyaan ah aan dhisto xaq uu leeyahay inuu dhisto laakiin inuu public intuu la soo istaago oo yiraahdo hooyada Soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed wax ka quseeya male haddii aan guri dhisanayo dabaq intaas oo biyaano ah iyo haddaan jinga dhisanayo yacni aniga taas qusaysa cid yacni qusaysa male inuu yiraahdo madaxweynaha hadalkaas weeye hadalka yacni ummadda Soomaaliyeed ee ka dhaqaaday oo maanta lala yaabay oo ay yiraahdeen sidee madaxweynaha wax ka noqdeen wixii ma dhagar dhacsi baa dad masaakiin oo hooyooyin Soomaaliyeed ayaa intii guriyada laga burburiyo laga jibay maanta dibadyaal ah banaan jiifo ya inuu marka madaxweynaha sidaan yacni ma ku qurux badnayn ay dadka qaar leeyihiin adiga sideed u aragtaa marka waayahay dhanka kale madaxweynaha wuxuu galay haddana dhalinyarada baraha bulshada oo aniga aan ka mid ahay wuxuu yidhi maanta keliya ayay buunbuuniyaan wanaagga iyo waxyaalaha la qabto ee dawladda ay qabato kama hadlaan taas oo ku taageeraya madaxweynaha sax
madaxweyne taas waa kugu taageerayaa sababtoo ah dadka baraha bulshada ka hadla inta badan boqolkiiba 95 xaqiiqda kama hadlaan taa waa kugu taageerayaa waa run dawladda waxay qabatana oo wanaag ah ma sheegaan laakiin hal mar haddii qalad yar ka dhaca dawladda afarta koono ayay ka soo wada kacayaan taas waan ka hadlay horaan uga hadlay macal siyaasiyiinta ayaa taas ku jirta mucaaradka ah inay dawladda yacni waxqabadkeeda aan la soo bandhigin ama aan laga hadlin laakiin waa bini aadan ee markii wax yaroo qalada uu ka dhaco hal mar la wada kaco la wada qaato haddii siyaasi mucaarada yahay iyo haddii bara bulshooleyba aan nahayba oo hal mar aan la wada istaagno dawladda isaasay tiri dawladda isaasay samaysay sidaas ma xaqbaa sidaas maxay ku keentay dawlad ma aha tan baadil weeye bababa waxaasaa lala soo istaagaa madaxweyne taa horta garaan kugu siinayaa waa sax waxaa la rabaa xumaatada sembiri looma xigto intii la dabooli karo waa la daboolaa qalad hadduu dhaco waxyaalaha yararkaa oo daciifka ah waa meelaa la iska dhigtaa laakiin dawladda markay wax yar dhaqato wanaag ah wanaag waa laba buuraa si dawladda iyo macal shacabkeeda ay niyad u helaan oo ay yacni allay lehay dawladdii wax fiican bay qabatay si loo yidhaahdo shacabkana yacni ay u dhegaystaan wax fiican baa laga sheegaa dawladda markay wax wanaagsan qabato qaladaadka markay dhacaanna haddii aad ka aamusi kartid ka aamu haddii aad ka aamusi kartid haddii aadan ka aamusi karinne dee ha bumbuuninne siday wax u dhaceen wax u sheeg ee dawladda yacni wax u qaladay taa marka horta madaxweynuhu waa ku saxsan yahay laakiin kelmadda hore ayaa kelmad waxay ahayd qaldaneed tii marka baraha bulshada madaxweynaha uu ka hadlayay waa tana ayadana bal eega dadkeenna ayaa aad u baafin og ducfiga ama muxuu ahay waxyaabaha meelaha aan ku liidano ayagoo mar walba ka aamusayo meelaha aan ku xoogannahay meelaha aan ka qurxannahay meelaha aan horumarka ka samaynayo waxaan rabaa marka inaan u sheego dhallinyarada taas ayaa ka kilig badan kuwa kiligta raadinaya ee lacagta ay kaga jirto in kilig lagu siiyo muxuu ahay beejkiisa ama bartiisa taas wanaagga ah ayaa ka kilig badan midda xumaanta iyo beenta aan jirin aad maalin walba qaar la leedahay wadada la taagan yahay madaxweyne tan waan kugu garaabayaa middaan waa sax dawladda waxyaalaha fiican ee qabato inta badan kama hadalno haddaan bara bulshanahay laakiin wax yar markay dawladda ka dhacaan oo qalad ah yaan hal mar hubka wada cabbaysanaa hal mar ayaa hubka wada cabbaysanaa taana waa laga fiican yahay horena waan uga hadlay oo waxaan idhi war dawladda wanaaggeedana aan sheegno oo wanaaggeedana ayaynaan qarin haddii qalad ka dhacana qaladkeeda intii la dabooli kara hala daboolo haddii la sheegaana dee sidii wax u dhaceen sidii wax yacni dawladda yacni qaladka u gasha ha loo sheego yaan la sii buunbuunin marka waxaan leeyahay reer bara bulshooy dawladdan waa dawladdeennii annaga iska leh cid kale ma laha haddii marka qaaqlayaasheenna farada badan ee baraha bulshada ku jiro dawladda yacni had iyo jeer ka hadla arrimaheeda haddii marka xumaanteeda keliya aan sheegno waxaa weeye dawladnimadu daaqadday ka baxaysaa ummadda dhan ayaa nacayso sababtoo ah qof kastaaba waxaa ku xihan intaasoo 100,000 iyo 10,000 ayaa ku xihan qof kastaaba oo wuxuu soo dhigaa saas u daawanayo bulshadii way kala qaybsantaha oo dadkaas u kala qaybsan yihiin marka waxaan rabaa wanaagga dawladnimada waxay ku fiican tahay in la garab istaago dawladnimada waa in la taageero waa sax dan weyn ayaa noogu jirta dawladnimada marka haddii aynaan taageerin oo xumaanteeda keliya aan ka sheekayno dee bulshadiina way nacaysaa marka waxaan dhihi lahaa reer bara bulsho walaalayaal war dawladda wanaag badan waa samaysa waxyaala badan way qabato dawladdee waxyaalaha ay qabato aan ka hadalno aan sheegno yaynaan duugin xumaanta keliya yaynaan u soo jeedin haddii wax yar hal meel oo wanaag wax ka qabato aan u taban jibaarno ha loo taban jibaaro laakiin haddii aan dawladdii cadow ku wada noqonno oo qaladkeeda keliya aan fiirsanno oo keebla yurur aan noqonno oo aan nidhaahna maanta dawladdii maxaa ka soo yeeray maanta maxay qabato oo xumaan ah maanta maxay qalada gashay intaa keliya haddii laga eego baasha dee dhibkeeda leedahay marka waxaan leeyahay waan kusoo gabagabeynayaa war dawladnimadaana deeqdo soomaaliya dawladnimada ayaana deeqdo dawladda annagaa iskale shisheeye kama nihin cid kalenta ma laha waxa iskale waa innaga haddaan soomaali nahay
dowladnimada aan ilaashano walaalayaalo shakhsi keligii ah hadduu rabo xumaan hadduu sameeyo xataa shakhsigaa keliyaan dowladda loo dhaleecayn shakhsigii iyo dowladnimadaa weyn waxa isku dhow maaha dowladnimada waxay ka dhexaysaa ummadda soomaaliyeed oo dhan bay ka dhexaysaa iyo geyiga soomaaliyeed ma aha marka xasan sheekh oo keliya inuu dowladda leeyahay ma aha marka waxaad leeyahay waad salaamayaa dhammaan meel kastoo aad joogtaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu